بسم الله الرحمن الرحيم انت aynaan xafladeenan furitaanka xafiiska aynaan furan waxaan ku bilaabi doonaa aayadaha quraanka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin آمين صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم إلهي هنوان فعايدها قرآن كأه دمان وحن آديات السلام يا مرت الشرف تيسوق تمد فورتان كحفيز كي وهريي إتشالية دا سومال لنا مجرد سين كلاود ما أنتوا تاريخ التهاي لبعتن يلح ديسمبر سنة كلابا كوني لبعتن كا وحن آديات عن وجوم هذا علني دمان مرت الشرف تا حملها تشالية دا iyo dhammaan martida kale ka soo qayb gashay xafladda oo leeyahay sida wanaagsan aad u soo ajiibteen aad baad u mahadsantihiin hadda waxa aan u gudbi doonaa daafurida si rasmi ah xafiiska waxa ku soo dhaweyn doonaa dhammaan xubnaha kale ee jaaliyada oo iyaguna halkan ka hadli doona السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta anigoo Cabdicasiis Kaasin Rooble oo gudoomiye ku-xigeenkii jaaliyada Sankaloor waxaan halkan ka furaynaa oo aan furaynaa xafiiskii ay jaaliyadu lahayd marka waxaan leeyahay akhyaarta intii ugu horeysay inta iga dambeysaba soo dhawaada xafiisku waa xafiiskiini adresskana waad halkaas ka wada qoranaysaan marka waxaan leenahay dee ku soo dhawaada gacmo furan insha Allah bismillaahi kariim dee wada jir inuu hawsha u wadaynaa marka waxaan leeyahay waa meeshiini insha Allah bismillaahi kariim xafiisku waa xafiiskiini maanta hooy baad leediin hooygiina kaalaya waa kana leenahay hooygiina ku soo dhawaada ومهدسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waxaan soo dhaweynayaa dadweynaha ka soo qayb galay furitaanka xafiiska jaaliyada Soomaaliland ee Saint-Cloud xafiiskan oo ah xafiiskii ugu horeeyay ee jaaliyada Soomaaliland ku yeelato magaalada Saint-Cloud Saint-Cloud area aan iraahdo ilaa waxa Saint-Cloud la xiriira oo dhan xafiiskan oo ka shaqeyn doona isku xidhka bulshada reer Soomaaliland iyo ka shaqeynta si looga qayb galo horumarka iyo arrimaha bulshada iyo waxyaabaha ka jira Soomaaliland ee wanaaga ah waxaan ku hambalyeeynaa dhalinyarada ay ka soo shaqeysay furitaanka xafiiskan iyo sameynta jaaliyadan oo ugu horeeyo Xamse Muuse Yuusuf oo ah gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka Cabdicasiis dhammaan dadweynaha kale ee reer Soomaaliland ee ku dhaqan Saint-Cloud area waxaan farayaa insha Allah tacaala inay ka soo qayb qaataan ay jaaliyadana ka mid noqdaan aadna waan u hambalyeeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نستعين مرضيا ودين أنا كمدا community Somaliland gaarahan reer Saint-Cloud waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweynaya farxadna noo dhiirigelin noo ah inaanu yeelano maanta xafiiskii ugu horeeyay ee community Somaliland especially anoo kamida memberska Somaliland waxa farxad weyn noo ah inaanu ku yeelano magaalada Saint-Cloud xafiiskii ugu horeeyay waxaan aad ugu hambaleynayaa dadkii ka soo shaqeeyay xubnihii iyo dhalinyaradii isku hawshay juhdiga gelisay inuu xafiiskan furmo si loogu adeego community-ga bulshada aad bay farxad noo tahay waxaan ku soo dhaweyn waliba aan aad ugu faraxsanahay inaan ku hambalyeeno gudoomiyaha jaaliyada Xamse Yuusuf waxa leenahay hambalyo iyo jaaliyada ka soo shaqeysay intaba aad baa mahadsantiin anaguna aan ku faraxsanahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo furitaanka xafiiska jaaliyada Soomaaliland ee Saint-Cloud iyo Central Minnesota marka aad baan ugu mahadnaqayaa dadka soo qaban qaabiya xafladan oo ugu horeeyay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo dhammaan bulshada reer Soomaaliland ee ku nool Saint-Cloud iyo Central Minnesota waxaan idin sheegaynaa in xafiiskan iyo xafiiskiini idinka ayuu idin shaqeyn doonaa waxaan doonaynaa inaan ummadda isku xidhkeega ka shaqeyno waxaan doonaynaa inaan ka qayb qaadano sidii aan dalkii iyo dadkii iyo inta halkan ku noolba isku xidhi lahayn dabadeedna wanaaga iyo horumarka dalka looga shaqeyn lahaa iyo dadka reer Soomaaliland ee ku dhaqan waqooyiga Amerika iyo dalkii hooyaba waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد علي السيد أفاينك جاليدا Soomaaliland magaalada Saint-Cloud aad baan ugu faraxsanahay maanta inaanu furno xafiiskii ugu horeeyay ee magaalada Saint-Cloud ka hirgala ee ay leedahay jaaliyada Soomaaliland
xafiiskan oo muddo badan laga soo shaqeynaya howl badan iyo juhdi badan aan gelinay kadib maanta ilaahay noo suurtageliyey dhammaantayo xubnaha jaaliyadda iyo communitiga jaaliyadda magaalada St Cloud aad baan uga mahadnaqaynaa sidii wanaagsan ee noola shaqeeyeen ee hawshaa noo garab istaageen anaguna maxay ahaydey dadaalka halkaa kaga hari mayno sidaa maanta aanu xafiiska u furnay baanu doonaa inaan kasii kordhino ilaa aanu kuu fidino aanu jaaliyadaha kale aanu xidhiidho wanaagsan aan la sameyno wixii aan la qaban karna aan la qabano experiencegaas iyo waxyaalaha badan aan uga faa'iidino iyaga Somaliland shacabkeedu meel kastay joogaan salaam baan u diraynaa insha allahu iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa xogayaha arrimaha siyaasadda ee xisbiga wadani cabdi soo dhawow saaxiib بسم الله الرحمن الرحيم أنا عبد الرحيم محمد حسين أنا حقيقة سياسة حزب الوطني waxaan maanta lagu casuumay ka soo qayb galay xafiiska St Cloud ee jaaliyadda dhamaan aad waxaan salaamayaa jaaliyadda reer Soomaaliya St Cloud shaqada fiican ay qabteen iyo hawsha fiican ay sameeyeen waxaan gaar ahaan salaamayaa gudoomiyaha Xamse oo runtii nin aad dal badan iyo jaaliyadda la shaqeynaysa waan hambalyeynaa jaaliyadda reer St Cloud shaqada fiican hayaan rag iyo dumarba waa arrin aad u fiican waa arrin runtii lagu farxo waan soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliya reer St Cloud wada shaqeeya isku duubnaada كل واحد قبضة شقة عنه دمان شالي ذاك الرسوم الله يكون ديدان عاد بني إسلام دمانتين وأنا بلينا قدومية هي أنت لا شقين دمان تود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مقاعي جوا عبد إسماعيل waxaan maanta ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda daahfuritaanka xafiiska St Cloud ee jaaliyadda Somaliland ururkan oo sanad ka yar marka aasaasan waayihii la asaasay waxyaabaha ugu horeeya la ballan qaaday waxay ahayd in xafiiskan la furo inkastoo corona iyo waxyaabo badan oo dhibaatooyin jiraan jaaliyaddu waxay ku guul gashay inay xafiiskii furto maantana aan ka soo qayb galno xafiiskani wuxuu u noqonayaa sal iyo tiir communityga St Cloud ee Somaliland oo dhan iyo wixii nala degan oo nagala soo qayb gala aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan lagu bilaabay magaca Ilaahay ma wanaagsana dhamaan weydii soo dhaweynaya dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Somaliland ee ka soo qayb galay community-ga daafurkiisa maanta xafiiska magacayga waxa la yiraahdaa Saalax Ali Axmed waxaan ku magac dheeray Saalax Cadde aad baan idinku mahadcelinayaa sida qiimaha iyo sharafta leh aad uga soo qayb gasheen maanta oo xafiiskii Somaliland la daafurayo dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyarada Somaliland community-ga Minnesota dhan weydii soo dhaweynaynaa gacmo furan xafiisku waa furan yahay shaqo wanaagsan baa joogta dhalinyaro aqoon leh baa joogta ku soo dhawaada midda kale xafiiskan waxa loo furay in lagu qabto shaqooyin badan la qabanaya xafiisku qof walba oo danta Mareykanka danta Afrika community-yada wax walba aad u baahan tihiin xafiiska waa ka helisheen waxay idinku soo dhaweynayaa gudoomiyahayaga Xamse iyo dhamaan shaqaalihiisa oo aad far badan marka xafiisku waa furan yahay soo dhawaada walaalayaal بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين بآدي آدبان إذين سلامية وحن أمهد عليني إلهي سبحانه وتعالى ما أنت إنه قسمي إنه نسكوني معنا حفيزك جمهورية السوماليلان أكوية نندون تمقالات سين كلاود حفيز كاس ومدبدا أنو كتاميني دادك الديقان كون أي ربين إنه يشان حفيز إيجا ميدايا دادكو هدانا حفيز لهين ما هادد له ميل iyo hawl iyo ajenda midna saas darteed xafiiskani waa qalab uma dhaxyaala laakiin si waxa ka muhiimsan qulubtii umada oo aan hananay intoodii badneed inta kale ee naga dhimana waxaan u fidinaa walaalnimo iyo wehel toosa inay nagala soo qayb galaan oo nala shaqeeyaan xafiisku micno badan ma sameynayo hadii aanay dadkiisu aanay isku xirneen oo aanay wada shaqeyneen ma hadaasoo dhan Ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala noo hirgeliyay waxaan kaloo iyagana abaal weyn oo duugoobin aanu hayaa ambassadorka Somaliland u fadhiyo waddanka Mareykanka ambassador Dr. Bashir God iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Yaasiin Maxamed Xeer Faraton hawshii ololihii ayaguna ay ka galeen inay jaaliyadani ay hana qado ifka aragto iyaga oo ka duulaya siyaasadii uu dhigay mudane Mise Buuxi Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland muddada aad ogtihiin waxa socda olole loogu jiro in siyaasadii arrimaha dibadda ee Somaliland wax badan laga bedelo saas darteed anaguna waxaan ku soo beeganay iyada oo siyaasadii arrimaha dibadda ee Somaliland oo muddooyinkii u dambeysaba cidun ay waday maanta la sii xoojiyay
sidaas darteed bay naga siiyeen talo in xafiiskan furitaankiisa uu yahay muhiimad, noona ballan qaadeen in maanta wixii ka dambeeya xafiiskani uu iyaguna ay taageero iyo tabantaababa ay naga geysan doonaan. waxaa kaloo iyaguna muhiimad iyo lafdhabarta weyn ah oona la-aantoodna xafiiska maanta aanu furmin dadka jaaliyadda reer St Cloud oo dhammaantoodba mid lacag keena iyo mid talo keena iyo mid arrin keenaba dhammaantoodba iyaguna ay xafiiskan ku midoobeen. marka hadda aniga ka guddoomiye ahaan hawl badan baa saaran. xafiis la furay waxa ka dambeeya waa laba midun, xafiiskoo sii shaqeeya shaqadii qabta iyo xafiis fadhiisan waaya. marka ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay aanu igu ceebeynin oo aniga tiimkayga unagu asturo si hawshan aan uga miro dhalino. waxaana naga sii nasiib badnaan doonaa dadka naga dambeeya annaga, kuwaasaan uga tegi doono dhaxal iyo xafiis furan iyo shaqo bilaabatay meel uu nasiibna gaarsiiyaba. kuwaasna iyagana waxaan leenahay intii kale ahaan lahay isa sii diyaariya oo hawsha sii barta si aanu muxuu ahaa idinkana noqotiin nagasta roolka dambe ee hawsha qabtaa. dhammaantiinba aad iyo aad baan idinka mahad celinaya. maanta oo dhan baad joogteen, xilli corona lagu jiraa, dad badan waan jeclay inay kasoo qayb galaan, laakiinse siyaasadda waddanka oo ah in la kala fogaado iyo in dadka la yareeyo awgeed maanta namay suurtagelin. intii naga maqnaatay, intii aan haleeli kari weynin inaan u sheegno, dhammaantiinba halkiina ku raalli ahaada. xafiiskii waa kana, business hourska iyo adareyskana shaashada hoostaad ka arki doontaan. waan idinka mahad celinayaa dhammaanba jaalidii iyo guddidii sharafta lahayd ee hablii inamaba lahayd ee ila soo shaqaysay oo aan iyaga madaxooga waxaan ku ahay. la-aantiin imay qabsoonteen. hadda maanta waa xafiiskii uun haygu haleelina cid kale ilaahay kasako sidii aad ila shaqaynaysayna maanta ila sii shaqeeya. aad baad mahadsantihiin. waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaanba tiifiyada maanta na duubaya. ugu horey walaalkay maxamed xidig oo isaguna ah nin deegaanka ah oo hiil iyo hooba isna la garab taagnaa. waad mahadsantihiin. xafiisku inoo furan yahay, xafladdu inoo xiran tahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. marka hore bulshadiina reer Somaliland ee degan St Cloud Minnesota ee golahan igu soo marti qaaday, waxaan idinka codsanayaa inaad ii ogolaataan inaan fursaddan kaga faa'iidaysto inaan salaan iyo hambaliyo sanadka cusub ah u soo diro bulshada Somaliland ee ku degan ee ku dhaqan Mareykanka guud ahaanba iyo gaar ahaan reer St Cloud. waxaan rajaynayaa inuu noqdo sanad caalamka oo dhan ka dulqaada aafada ku habsatay oo soo celiya himiladii, firfircoonidii dhaqaale iyo bulsho iyo fadhiyadii sheekada iyo shaaha ee inta badan loo dhugmay. waxaan leenahay kii noo hagaagee noqo loo hanweyn yahay. ereyo ka kooban, ka qurux badan, ka hididiilo badan oo lagu himiloon lahaa laguna ducaysan lahaa garan maayo. midhihii xuseen oo faarax iyo codkii maxamed saleebaan. mar labaadka waxaan idinku bogaadinayaa bulshadiina Somaliland ee St Cloud sida wax ku oolka ah ee aad u tashateen uguna go'aansateen inaad samaysataan gole taladiina iyo tabartiina mideeya oo bulshadiina iyo dalkiinaba aad wax ugu qaban kartaan. waa mid lagu farxo inaad tawfiiq la timaadaan oo aad ku dhisataan organizationkiina aad magaciisa u bixiseen Somaliland St Cloud Diaspora iyo guddiga hagi doonta ee aad garwadeenka u doorateen Xamse Muuse Yuusuf iyo xubnaha kale ee hawsha la handaafin doona. waa talo fiican, waa tawfiiq fiican, waa horumar fiican oo aan rajaynayo in gobollo kale iyo magaalooyin kalena ay idinkaga dayan doonaan. waxaan idinku boorinayaa hawshiina ugu horeysa inaad ka dhigtaan kobcinta iyo kaalmaynta organizationka si uu u taabaqaado oo lugaha isugu taago inta aydan baylaha kale aydan gelin. qorshihiinnu wuxuu ku soo hagaagay xilli dalkeennii
firfircooni diblomaasiyadeed iyo dardargelin siyaasadeed oo xooggani ka muuqato aadna looga dareemay afrika iyo dunida kaleba sida aragtida ama visionka organizationkiina ka muuqdana haddii aad siduu yahay u hirgelisaan waxa cad inaad kaalin mug leh oo loo baahnaa aad ka qaadan doontaan horumarka dalka mar labaad waan idinku bogaadinayaa hawsha aad fuliseen guul baanan idin rajaynayaa nabadgelyo